ninkii farmaajo ahaa dadkii Soomaaliyeed midow gurigiisa ugu dhaw soo dilay midow baydhabo ku soo dilay midow Soomaaliyeed ku soo dilay kuwa oo xamar ku dilay meeluu jid dhigay askarow dhigay soo sii waday labadii madaxweyne ayuu oo weeraray oo hadda ka horna oo aeroboortka u diiday oo ama kisma oo u diiday oo jidadkii ka xiray oo ciidamadiisa waxa uu ku dalbaday ra'iisul wasaare ay nabadii noo isla ahaayeen iyo wasiirkiisii amniga iyo xildhibaanadii iyo musharaxiintii madaxweynaha iyo maalic xabadayna marka maadaama uu saas yahay oo uu yahay nin disaastar oo aan waxba doorin oo aan waxba xeerinayn oo dad agtiisa karaama kale aysan jirin oo nin iska weyraxsan oo yahay wax kasta laga filan karaa marka ninka maadaama uu saas wax kasta laga filan karo haddii ninkaas ama waa inaan loo imaan ama nin ku imaan inuu iska wardeeyo way nin la isku haleyn karo ma ninkii ra'iisul wasaare ka dhigay iyo ninkii madaxweynimada ku wareejiyay ninkii xabadayna yaa aamini karo wax ku darsan karo qof wax ku darsan karta ma jirto waa barbaarig waay marka in la iska wardeeyo taasaa keentay dhibaatadaasna waxaa abuuray ninka la dhahayo ama Abdullahi Farmaajo Soomaaliya madaxweyne ka ah ora ka ahaan jiray haddana si qalada ama gardara ama oo basiibanimo ah ilo Soomaaliya ku dhex jooga dadka ninkaas abuuray ee nimanka dhibaatada nimankaas iyo hubkiisa maahay ninka jawgaas abuuray waa ninka dhibaatadan keenaya waxoona waaye waxay keenaysaa nimankaas kaliya maahay qof kastoo Soomaali ah waxay keenaysaa inuu asaguna qorigiisa iyo oo habeesto kii heli kara kii baasuuka heli kara kii dabada heli kara qof walba soo heli karo inuu dagaal u diyaar garoobo ama yani sheegaysaa in la kala aamin baxay laakiin dad saad sheegayso la isku soo qasbayo aanan isku kalsoonayn oo hubka aragtay magaalada la yimid iyo madax halkan ku sugan heshiiska ay wada gaari karaan oo Soomaalidan ugu jirta muxuu yahay maya heshiiskan waa iska taalo waxaan ku dhahay ayaguna waxa qorimayaan waa asugu dadka macasuumid asugu goob shirad marka shir la qabanayo waxaa la rabaa intee lagu qabaha yaa ka soo qayb galay maxaa looga hadlaa saddexdaba asugu waxba kuma laha asaga la dhawaay la fiisa laga rabaa inuu la tago oo meesha oo tago asar madaxweyne ahayn oo dadkii la fadhiisto oo de kulli inuu actually inuu taga xataa ma loo baanin in la kaaftoomay ahayd sababtoo ay tahay asugu waa fashilmay waqtigiisina waa dhamaaday bishii Febraayo la soo dhaafay sideedeedii waqti uu ka ekay hadda sidii oo mataqaanaa sharci darro ah oo goli oo mataqaanaa xaruntii hoggaanka Soomaaliya isaga dhex fadhiya mana fahamsanaba oo duruufta ku xeeran iyo waxa ku xeeran ma fahamsana marka waa nin oo la hawla loo wala quwwata ah oo si qaldan maalmaha kamida xildhibaano Soomaaliya oo qaldan ay u doorteen marka hadda nimanka isu wacay oo gubasho dhigay oo martida loo noqday oo ayaa mataqaanaa u shaqaynaya bilmunaasaba waxa kaleeto oo ciidan cajiib ah Soomaaliya in gacan inay talada Soomaaliya inay ajnabi ay gacan ajnabi gasho oo ajnabi ka shaqeeyo waxaa noogu dambeysay shirki Kampala ee asaga ra'iisul wasaaraha looga qaaday marka uu diiday inuu waxna qaba kari waayo meesha ka tago uu diido midkii ku xigoo kale haddana waa akar kale waa 12 sano ma qaar mesela 12 sano kadib haddana waa asagi kii u dambeeyna asoo ahay ajnabi nisoo gacan geli haddana asagiyaa ku xiga marka Soomaali meeshaas ay maraysaa marka ma naqaan sida loo xalin doono ma naqaan sida loo xalin doono ma naqaan laakiin dhibaato ayaa dadka Soomaaliyeed oo u soo hooyay laakiin insha Allah waa laga baxaa هذا ما صدق حسن شغالي السلام عليكم